waa mar kale iyo Cambaabur Podcast-iga aqoonta sheekooyinka waayaha iyo wacaasha Soomaalida. Kulankani waa labaale, taas oo ka dhigan in fadhigan toddobaad iyo ka ku xiga ee sideedaad ay hal mar soo wada baxeen, iskuna mawduuc yihiin. Mawduuca labadan fadhise aad ayuu uga duwan yahay fadhiyadii hore ee Cambaabur Podcast iyo muxaadarooyinkii aan halkan idinku soo gudbin jirnay, ciwaanadii iyo mawduucyada aad uga barateen. Labada fadhi ee isku xiga waxaad ku dhageysan doontaan Baroor Diiq, Maxamed Daahir Afrax, qoraagi weynaa ee naga baxay aanu sameynay, Cabdilcasiis Gudcade oo ah turjumaa iyo qoraa, ayaa la hoori oo ah engineer architect ka bartay una faradhuuban daraasadaha Soomaalida, iyo aniga oo ah Cabdilaahi Raage. waxa aan u taariikheynaa waayihiisii ka warramaynaa, sidoo kalena wax soo saarkiisii faaqidaynaa. Allah u naxariistee qoraageeni weynaa Maxamed Daahir Afrax. Jimce bisha Oktoobar 15 tahay ayaan kulankan duubnay, aniga oo jooga magaalada Muqdisho, Cabdilcasiis oo jooga magaalada Hargeysa, iyo ayaan la oo jooga magaalada Boorama. Haddii aad codka sidii aad uga barateen uu ka hooseeyo ama uu ka tayadiwanaado, ogaada shabakada internetka ayaanu adeegsanay duubistiisa. Hal khalad oo kalena aan idinku sii baraarujiyo. Afrax waxa uu dalka Ingiriiska ku geeriyooday 9kii bishii Oktoobar ee sanadkan 2021. bilowgiisa barnaamijka waxaan ku khaladnay oo aan sheegnay inuu geeriyooday 10kii bishii Oktoobar. khaladkaasi oo dug lahaado. Kulankan toddobaad oo ah qaybta hore ee barnaamijka waxaa u badan oo aan kaga hadli doonaa in badan shakhsiyadiisa, wax soo saarkiisa iyo waayihiisa, halka kulanka sideedaad oo ah qaybta labaad ee barnaamijka aan aad awood u saari doono wax soo saarkiisa, gaar ahaan ka naqdiga iyo sheekooyinkiisa oo ay ugu caansaneyd Maanafay iyo sheekooyinkiisa kale ee gaagaaban. Labada kulan oo hal mar la duubay waa isla socdaan, waana isku nuxur, mana kala maarmaan. Ka hore iyo ka dambe si joogta ah ama si isku xidhan u dhageyso, kulana tali cid kasta oo aad is leedahay waa u anfici doonaa. Dhageysi qaaya leh. mar labaad soo dhawaada mudane Ali Marweyn, dadweynaha dhageysanaya duubistani waxaan idinku soo dhaweynaynaa qaybta labaad oo aan kaga hadlayno wax soo saarkii Allah u naxariistee qoraageeni weynaa Maxamed Daahir Afrax oo 10kii bishii 10aad 2021 ku geeriyooday cariga dalka Ingiriiska. wax soo saarka iyo Baroor Diiqda iyo sifaha wax soo saarkiisa iyo sida uu shaqooyinkiisa iyo sida uu uga turjumayo waaqica uu ku noolaa iyo duruufihiisa bedelaya dalka xagga luqadaha haday tahay iyo haday tahay xagga duruufaha nololeed iyo siyaasadeed iyo dalka markuu joogay markuu cadan ama Yemen ku ahaa musaafir ku ahaa ama qofatiyo ku ahaa iyo markii ugu dambeysay ee uu dalka Ingiriiska joogay iyo waxyaabihiisa isbedelay inta noloshiisa ku jiray. aan ku soo sifaynay qaybta hore ayaad ku dhageysan doontaan, laakiin qaybtan hadda waxaan rabnaa inaan kaga hadalno oo u guda galno sideen u sifayn karnaa wax soo saarkiisa. marka aan ku bilowno su'aasha ugu muhiimsan oo ah wax soo saarkii faraha badnaa ee kala duwanaa ee hore soo sheegnay ee duruufaha ka turjumayay ee Maxamed Daahir Afrax sameeyay. wax soo saarkaas sideen u sifayn karnaa haddii aan sifo guud ka bixino, dabeetana aan ugu gudubnayna qayb uga hadalno kuwa ugu muhiimsan. kusoo dhawaayaan أنا ما راهي صوت في عنا الوصف فين كرا واحد تهاي إريد استعماري إسلام محمد مرو قرفيني رواية علش معاله قصة ولي هاي وجه بحي كان واحد زي هاي محمد وحوها إنه يسكدي إنه شبحية والنقطة قاب الصوت الله قاري كل السوقات فرط صومالية لكن لقيت النقطات اللي يحكوا قاري حطيت هاي الشيء كذا iyo haday tahay la fagurka labadaba sida uu Cabdilcasiis sheegay ilaa hadda uu jirin buu ku dhigmaa buugiisan mas'aadka Soomaalida ya faqraadka waa caan baxay iyo Maanafay inta Soomaalida Maanafay lagu dayday, laakiin jidbixin buu sameeyay marka dhan waxay ka ahayd in jawaabo cusub iyo ay ahayd wayli gelinay farta. marka taaba lagu soo koobi karaa isleeyahay Maxamed isku dayay oo yeelifteedu aan kala baxay midalan ana yeelifteedu kala baxay inuu salahaan oo kale sheekooyinkii ka horeeyay Maanafay markii farta la qoray waxa ka horeeyay aqoon darro oo nacabtay iyo sheekooyin ka horeeyay baa jiray. marka isagu wuxuu ka duwanaa oo novelka Soomaaliga ah iyo cagsiga wuxuu qaatay midalan novelka Carabiga cagsigiisa sidoo Ustaad Cali Bak doodayo oo markii hore sheekadii caadi baa farta lagu qoray, laakiin in qaab kan misal Maanafay kale u qoran tahay loo qoray sida ugu fiican waxa uu soo bandhigay Maxamed Daahir Afrax. tusaale ahaan oo kale markaad isbarba dhigto aqoon darro macab jacayl iyo Maanafay kala duwan kow sheekada aqoon darro macab jacayl waa sheekada dhacday ayaa dib loo hawlgeliyay dib loo mala awaanay wax lagu daray
isagu laakiin waa sheeko uu xoriyey arrinta labaad waxa weeye xataa istaylka gabayga loo isticmaalayo oo qoraal fiican ka sameeyey ninka la yidhaahdo Gushan Darjawis isla fawaayada novelka sheekada aqdaro nacay marka isagu afrax qaabku u qoray sheekada Manufai oo in fact iyada sheekada ka sii horeysay novelka ka sii horeeyay novelkan uu ka sii horeeyay novel luqada carabiga ku qoray nidaam xiriya la yiraahdo nasiibtaha lama hayo xataa manuscript islaam ku doodaysa gabadha Lubin Captains oo qoraal ka sameeyay Maxamed iyo sheekooyinkiisa laakiin marka Manufai waxay u noqotay jidbixin qaab cusub oo fartii Soomaaliga la dhaqan geliyay loogu qori karo sheekada marka wuxuu qaabku maqaysay inuu noqdo haddana marka laga yimaado Manufai loo yimaado fan masraxeedka haddana wuxuu isku dayay inuu haddana qaab cusub oo naqdiyo la faqur fiicana oo ku sameeyo masraxa Soomaalida mawduuca masraxu doortay inta badan inaga qaabka looga hadalnaa qaab ka duwan misoo uga hadlo cilmiya oo naqdiya iyo farta oo qaabku u hawlgeliyay oo yeeliftii jidbixin cusub waxaad ka dareemaysaa marka dhanka eegto in afrax iyo camalkiisu ama shaqadiisu ay kala baxayno tusaale ahaan oo kale waxa jira qormo uu qoray 2008 oo ku naqdinayo gabayga ama maasda si guud Soomaaliyeed wuxuu leeyahay isdiidaa jirta oo mesela marka ay maasda waxay ka badan leedahay waxay ka soo daan qaadataa waayaha ama environment-ga ama deegaanka kolba ay joogto laakiin wuxuu leeyahay maasda Soomaaliyeed markii magaalada soo gashay still humaaga ama qaabka ku sawirayso iyo xataa agabka luuqadeed iyo sawirka ay samaynayso waxay ka keenaysaa baadiyaha iyadoo dadka maasada loo tiray dadka tiriyaaba qaarkood laga yaabay inay magaalo marka xuleeyay wax ku keenaysa marka qofkii magaalo ku koray inaan dhaqanka iyo duruufta iyo luuqadda iyo sida aanan hidaha baadiyanimo aanan dhaxlin diinimo aanan dhaxlin inay ku adkaanayso inuu sawirto sawirkan la samaynayo maasada lagu sawirayo marka xuleeyay waa in qaab cusub looga fikra gabyaalka Soomaaliga markii magaalka qaab aanan ka iimaanayn mesela qaabka malawaalka uu dhisay iyo qaabka sawirka uu dhisayaba marka si uu ugu baraarugsanaa isbedelka ku dhacaya labada dhinac inkastoo afrax dhinac shii ku yahay mesela markaad akhriyayso qoraal fiican ka sameeyay kiiskiisa qayb ka ahay shabeellaabo ka sheekeynayo isbedel ku dhacay si guud gabyaaga Soomaali marka ma kala baxayaan labada dhinac marka Manufai wax ka dhex muuqata shaqadii ku hayay adabkiisa iyo ay ka dhex muuqata moodahay naqdiga uu sameeyay marka anutaan soo karo soo koobi kara wajiga inuu jidbixiya ahaa marka dad kalena ta ugu weyn la barayaan wax weeyaan laba ina sameeyno kow in kasoo taasanka dabaqi doona ku aqoonay in waxaan ku doorisi karno dadaalkiisa laakiin aakhirka dambe inaga naftigeenu aanu samayn doono sahamin cusub marka meelaan horey looga jidbixiyo iyadoo la isticmaalayo wixii soo isticmaalo ahaatee luqadda iyo farta Soomaaliga hadda inoo qoran aad iyo aad adigu wax soo koobtay inuu yahay jidbixiye layli geliyay farta oo markii farta la hirgeliyay la qoray maxaan ku ay faaftay sheeko ku qoray naqdina ku qoray masraxa iyo gabaygaba cabdicasiis oo doorkaaga adigu sidaad u sifay kartaa adigoo isku qaadaya wax soo saarkii Maxamed si guud oo noocyadiisa kala duwanba ugu horeyn ayaan ugu waafaqsanahay in jidbixiyaan ahaa erayga uu isagu afrax lafkiisu uu abuuray oo isticmaalay ilaa farmasaxadka dadka ilaa farmasaxadka soo isticmaalayay inuu yahay isla eray loo isticmaali karo qodiisa marka waxaan oran karnaa waa run jidbixiye suugaaneed markaynu eegno waayaha wax qorayo ugaar Soomaaliya xilligaas waxa weeyaan fartiga la qoray dawladii kacaanku waxay samaynaysay qodda sida uu Andrushki sheegay qodda waxa loo isticmaalayay farkan cusub waxa loo isticmaalayay in ujeedo farsameed oo rabshada hawlaha wasaaradaha ciidanka warbaahinta yani in waraaqaha iyo manhajka ciyaaraha جامعة سكر ما خفرت ربحنا الأبورة يلا سكوا جبي أهاندا كوكوان شدة كسمة تكنيكال أو إنه بس تردو قوة حليران أفكار سوى دودا
qoro manhajka iyo ardayga macallinka waxay ku wada xiriirayaan uu saaro marka waxa maqnaado kaalina baa maqnay oo haddii dad wax ka mid yihiin aanay soo baxeen lumi lahayd aad iyo loo waayay dadka waxa ka mid ah rayidii horreeyay turjumaada oo sameeyay xayawaanka iyo sababtuna dhexdeeda isla in wax ka baxsan farsamada oo aqoon mas'ala cilmiya iyo mid naqdi ah iyo mid ka qorin la qorinayo oo dhisayo in la abuurayo taas haddii aan la bilaabin hawsha ugu weyn imika in haysato maada ku shaqeeya hawsha weyn dadka imika haysta waxa weeyaan adaagta sinimada dhexdeeda Soomaaliya sida ay wax u soo turjum waa erebixnada erebixnada badankoodu noqon yihiin waxaan hortaa idbaan erebixna aanay marka waayo wax maqnaa gaabis badan baa ku jiray meelaha kale asagoo wuxuu ku aaday oo Soomaaliga uu ku qoray iyo erebixnada uu adeegsaday isagoo weliba dhaadan dhibaatadaasi iyo awood u leeyahay inuu aqoon qaado oo ku raacsanayo in Soomaaliga uu aqoonta qaado karo iyo xabaar sayidisuna ay qaabili karaan وشيء تؤري أصلا هذا اللقب صنعي صراحة قالنا يا أري أحب الفرنيا أري فن وين اللقب صنعي فهم كرنا أري مسرح عند فهم كرنا وين استعمالنا استيج أنا قلت من ليش قطع وهذا اللي قلت لي ما أنا واحد إن كأرنا يا ولد درامات آرت أنا كبير أري وأنا سليه من أري وحنا نقص لا أنا لا أري اللقب صنعي طبعا ولا لقب صنعي يا ولد أري الصومالي ما كنت بحيان كاسوء sidoo kale wuxuu ahaa badbaadiye qoraaladiisa oo dhan af carab ah ku qor qofka danaynaya Soomaalida iyo suugaanta marka la tagana marka uu suugaan oranayo iyo marka naqdinayo halkiis waa suugaanyahan labadiiba marka daryeeyay iyo marka naqdiyay marka isla ku qabanaya oo laba hab u kala qabanaya isla ku qabanaya oo saddex af ku qabanaya waxaan isleeyahay wuxuu ku guuleystay faahada soo qaato qabadiyadii soo qaata labada kun iyo saddexdii qoraalka ugu muhiimsan isleeyahay waxa lagu naqdiyay gabayga classical poetry-ga gabayga gaboobay Soomaaliya qaabka gabayga qoraalka ugu muhiimsan isleeyahay waa lagu naqdiyay dhamaystiran Ibrahim Hawd baa qoray wuxuu qoray laba kun saddexdii waxa gabayga uu dhintay sidaas qaawan ee fayaxan qoreedka iyo gabayga uu furfuranaya hal la ogaado laba kun saddexdii guud ahaan wuxuu qoraalkiisa ku saabsan yahay waa urus dheer saabsan yahay doodaas ah waa erey waa asmal dahane laakiin sababta gabayga aan u sii socon karin waxa uu qaybi uu lahaa iyo sababihiisa loo luqeeyo misaxa hawlahaas kale sana xaq xilliga uu Ibrahim qorayo gabayga uu ayuu si idan oranaya u sheegaya asax gabayga taashan saddexdii halabuur noqol ku soo baxay cadad ku soo baxay qoraalka uu ku leeyahay xaqadii hore ku tilmaamay ahaa nation of poets or art laughing table mad Soomaali mad gabayga mad fanka dhan shaqo gabayga uu baxa lagu soo xadidaysa wuxuu sheegayaa wuxuu yara taabanaya oranaysa classical poetry spiritual and gabaygii waa ku dhacay ama uu yaraan wuxuu waayay qiimayntii uu ku lahaa dadka reer magaalada dalka Ameerika magaalada labadaba sida uu ayaan sheegay qofkii magaalada ku koray aan gabaygu waxay ahayd meed buu lahaa iyo saahan iyo wax qorxiya sida geed caleen loo saama ku yiraahdo sida geed caleen leh uu qurux u jeedaa caleen leh meel ka baxay noocyada iyo meel farqiis gaaray marihii soo gandoodo dalka faraqa soo daray sawirkan waa sawir waxa sawran karo qofka baahida howlahaas ka ay nool magaalo oo dhirtu iyo waxaabay ay jiraan waa iyo midab waxa asaaf ama midab yaro meel ka sawran karayo marka wuxuu ka waayay jira ahaanba sababi lahaa in loo soo joogsado oo la qiimeeyo oo ah sida uu ula xiriiro waaqic sida ula xiriiro marka waxaan tusaale soo qaadanayo iyadoo oo aan arkayno laba kun saddexdii sano qoray faahfaahinayo oo waliba dood dhaliyay ayaa haddana arkaynaa 10 sano ka hor raashin saddex u dareensanaa arrintan ay jirto gabayga uu kaalintiisii waxa tusaale kale u ah iminka waxa waxyaalaha iska caadiga wax ka mid ah dadku ay aad u qiimeeyaan dadku ay wada ogsoonahay qof kasta uu ku waafaqayo sheekooyinka
hore u dhacay iyo kuwa dadku wada yaqaanaan ee shida abuurka ah maansada lagu daro oo lagu xusbay la gari waa eray in kala qaatay wax baxsan qofku uu ku dhex daro qabay hawl dhoran ruwaadii afsaday iyo sheekada lagu xusbay ama waraabay sidii raq meel taale cun soo raqan libaax bacnay ka tagay qabigeeda hawshan lahaa oo baadi doona oo ku raad jooga libaax ay u yimaadeen ruwaadii oo cunaya qadii ay jireen marka ruwaadaas uu xirfay laf uu dulxay oo hashan uu yiri sida meesha ka taalaba wax yar khayra sheekadaas maantadaas labada bay lagu soo koobay doron ruwaadii laftoodu waxay afsay marka inta waxaan fahamsanahay intaas ay tahay wax hadda aqoon iska caadi noqdo maansada lagu darso ay jirto in maansada lagu dari karo kala xariirta sheekay degdegta laga maqlay laakiin 87 buu ku baraarugay arrintaas jirto oo daraasad uu ku sameeyay waliba hadraawi soo qaadanaya maqaalkiisa laga shakhsiyad trafiya يعني هذا تراث يعني ذهب ما صلح هذا سو عرب iyo English wad Soomaaliya soo qaadanay marka hore furfuraya kabayga kafiyar gabayda hore classic ah ku doodaya waana runtii waxaan kala garan karay gabayda hore classic ah dadku baa la soo helaya libaaxda darwaa qaybi yiri soo gabayga si qiyaashmash libaaxda darwaa qaybi yiri soo run baa la soo helay wax la mid ah oo kooban aad kooban oo sheekada caanka ah hidida ah qayb libaax taabanaysay laakiin ka sheegaya in hadraawi iyo gaariya ay ku yihiin dadka aad iyo wuxuu darsi hadraawigu aad darsiyay 87 weeyaan waxaan la socdaa waxa weeyaan afku doonaha ku qor laakiin waxa uu taabanayay waxa weeyaan badbaadin jidbixin labada wuxuu mar badbaadinayay wax dhan oo lumi lahaa oo dadku iska ilaawi lahaayeen oo aanay u baahnayd in dadka la tuso oo ay tahay meel wax diin oo wax laga darsi karayo oo ay tahay halka laga si amba qaado wuxuu sidoo kale jilbixiye u yahay sida ayaan sheegay in suugaanta runteeda iyo faaqidadeeda albaabka loo furo oo bal iyadana la dhageysto oo iyadoo ay tahay inay wax ku dhex jiraan oo taa uu tusaale cad u yahay مثل waxyaalaha uu taabanayo waxa kamid ah buugiisa naafidatun al-ibdaa laba tankiiba hil bare soo saartay laakiin waxa ku jira qoraalada ku jira qoray in muddo hore statementiyadii uu qoray oo carabiga ku dhex jira oo la xiriira mawduuca meelaha uu sida xiisaha leh u taabanayo waxa kamid ah farqiga marka la joogo muusiga fanka sida iyo waxa bilowga ah marka la joogo wuxuu raacatada iyo beeraleyda maxay ku leeyihiin inta badan raacatada iyo beeraleyda marka la darsayo siro iska simplistic siro iska ayasiya baa loo taab kulama diganta kuma waxa iyo dacayada isku tuurtuur laakiin waxaan oran karayaa daraasad dhab ah oo taabanaysa farqi muhiim ayuu afrax horseeday jibixiyaan u noqday wuxuu sheegayaa sida ciyaaraha ciyaar dhaqameed raqasaad shacbiya ciyaar dhaqameed ama qodobka ciyaarka dhaqan soo jireenka ah ay ugu sar go'an yihiin hadba qaab nololeedka bulshada beeraleyda ahi waxa ku badan buu leeyahay qalabka muusiga ayaa ku badan laakiinse halka geeltiraha ku badnayn waayo ninka geeltiraha ahi xoolo raacatada waqti badan ma helayo inuu qalab sameeyo inuu waxyaalahaas laakiin kan uu degan yahay qalab walba markaa sameeyay wuxuu sheegaya shareerada iyo trimbiga wixii lamida qalabadaas caanka ah beeraleyda dhulka beeraleyda Soomaalida caanka ka ah sidoo kale wuxuu taabanayaa in taa marka laga yimaado oo waqtiga faakayso maadaama ku badnaa qalabka muusiga dhanka kale waxa ku badan suugaan afeedaba ku badan xoolo raacatada ama suugaanta fanka erayga in ma sala sameeyo hees hawleed badan la sameeyo way hawlaha ku badan qofku dhul badan buu marayaa deegaan badan buu arkayaa suugaan afeeda oral expression ayaa ku badan oo dhul badan buu soconayaa oo sida ninkii beeraleyda kala ma aha dhul badan buu soconayaa sida bahalo badan buu la kulmayaa deegaano kala duwan qaab dhismeed kala duwan marka
waxaasoo dhan waxay ku tusayaan sidaas xiisagelinta leh u taataabanayo afku doono wax ku qore ayaa afrax ka dhigaysa jibxiyeen badbaadiye ah oo misaaya ah Somali literature misaaya okay dabcan qofku waa dhinacay badan yahay sidoo kalena qofku siduu ula kulmaya ama u qaadanaya ama u fahmayana waa kala duwanaan kartaa waa la qabaa maxaan ku dhaxsaa u sifaysan oo waliba jidbixiyeenka ayaan ku sifeeyay oo ah moogtahay farta markii la hirgeliyay okay wixii ka dhima shaqada rasmiga xukuumaddu qabanayso wax kale ma lagu sameyn karaa waa su'aal moogta anu markaa waxaan isleeyahay anoo hadalka soo koobaya aniga afrax hadaad sawir hal erig soo koob lagu dhahdo ama sawir ka bixaan israahdo waxa uu leeyahay jawaab baan anu oran lahaa afrax waa jawaab weey muxuu jawaab yahay afrax wuxuu jawaab yahay daliilmooyinka ama istiidooyinka musaqafka Soomaaliga ama dharkarabka Soomaaliga casrigiisii noolaa ama ilaa casrigan maanta da'da ku soo gaaray Allah naxariista noolay oo la nool yahay uu jawaab yahay waxay yihiin marka istiidooyinkaasi oo afrax jawaabta waa wax soo saarkiisa daasa oo eegno oo maanta dhan soo sifeynay isaga oo aan maxaan ku raahdaa taxaddi ku jirin oo cid yani isku muujiyo ama cid masaladaasi ku gujiyo ama ku cadday ama khaladkooda muujiyo aan ku ahayn haddana waxaan isleeyahay afrax wuxuu iskaga gudbaayay waxyaabo dhinacyo ama istiidooyin si fudud wuxuu iskaga gudbaayay istiidooyin mutaqafiinta Soomaalida ee dharkarka Soomaalida casriga qaarkood sectarian ka dhigay moogta tusaale ugu horeeya aan isticmaali karnaa afafka waxaan haysanaa ugu yaraan 3 af oo ministrima afkeena Soomaaliga afka Carabiga oo maxaan ku dhaaf maxalliye oo dhaqanka iyo diinta iyo maxaan ku dhaaf cibaadada iyo fiqiga iyo waxaas la falgalay Soomaaliga laftirkiisana la falgalay oo maxaan ku dhaahdaa ay aad wax u kala qaateen tacbiir fikradaha tahay eriyaha tahay tacbiir tahay cabir baad tahay iyo afka Ingiriiska oo hadda afka caalamka mainstreamka ah ee wax ugu badan lagu soo saaraa ama aqoonta lagu soo saaro afafka waxa markaa afafkii kala mid ah Talyaanigii Talaan Faransiiska Djibouti Abxaariga Soomaali galbeeda xataa Sawaaxiliga oo moogta koonfur Soomaalida Kenya ay la falgashay afafkaas oo dhani aan waxaan islaahay waxay abuuraan su'aal waxay abuuraan afkid raacisa marka waxa jirta jawaabta anigu Soomaali quraan ku koobnaanaya macnaheedu yani istaahirin ay tahay afafka kale qofku iska daahirinayo marka Carabina la falgeli maayo Ingiriisna la falgeli maayo ama dagaal cad baa ku qaadaya qofkii Carabi wax ku qoray qofkii Ingiriis wax ku qoray qofkii afafka kale wax ku qora maxaan ku dhahdaa waa qaanada ka saaraya marka jawaabtaasi iskoobida soo xirxirida Soomaaliga isku koobaysa iyo jawaabaha مثلا afafka kale Soomaaliga mid kale ku ladanaysa مثلا qof Soomaali iyo Ingiriis wax ku qora oo maxaan ku raahdaa Carabiga ajnabi inuu ka dhigo uga fikiraya ama qof Soomaali Carabi wax ku qoro in Ingiriisiga maxaan ku raahdaa af aad fog oo ila la dhaqmaanahay oo kale ay u tahay yani sectariankaas xirxiritaankaasi ama Soomaaliga Carabi Soomaaliga Ingiriis ama Soomaaliga qura ama cagsiga jawaabta kale ah Soomaaliga af maxalliyo moogta cidna ma akhrido cidna wax haysan ma aqoon ma qaadi kara marka afafka kale wax ku qoraya jawaabahaasi ma aragtay diidmadii sectarianka oo dhan afrax cagsigeeda wax soo saarkiisu yahay Soomaaliga wax ku qoraya oo waliba yani halabuur aad u heer sare ku sameynaya Carabi ku qoraya Ingiriis ku qoraya isku gurgurkaasi duruufta ka matalo laakiin sidoo kale uu ka matalaya shakhsiyad aan xasaasiyadaha soo dhan mid keedna aan qabin Soomaaliga aan xasaasiyad ka qabin afafka kalena aan xasaasiyad ka qabin marka majaalkii Soomaaliyeed hadda Soomaalida majaal guud masrax guud ka soo qaadno intaas oo af ku dhex shaqeynayeen qof buuxin kara intiiba ka wada shaqeyn kara oo midna ku ahayn maxaan ku dhahaa qariib iyo midna qariib u arkeen midna aan qariibsanayn Soomaalidana la wada hadli kara maadaama Soomaaliga wax ku qori karo wax ku qorayo adeegsanayo Soomaalida kale aan Soomaaliga maanta akhriin la hadli kara maxaan ku dhahaa waxa Soomaalidu haysan gudbin kara oo Carabi Ingiriis ku qoray waxa uu ka afafka kale ku bartay oo tusaale ahaan naqdiga iyo ana yani maxaan ku dhahaa akademiyada ku bartay Soomaalidu soo gudbin kara isku furnaanta
inuu musaqafka laftirkiisu page noqdo yani wax isku gudbiya taasoo horta aniga igu muhiimsan oo jawaab uu ahaa sidoo kale tii ayaan la sheegay markaad moogtahay jidbixiye aad tiri wuxuu jawaab u ahaa tijaabada yani soomaaliga maxaa lagu qori karaa sidoo ayaan la sheegay مثلا naqdiga waxaan jeedaa cadaashiyo kale marka naqdiga kale ka hadlayay gabayga iyo naqdinayo aan waxaan islaahay waxa kale jawaab u ahaa qofka Soomaaliga ayaa lana maalin baad wax ka qortay marina sida banaadiriga uu la falgalay gudaha Soomaalida isla falgalka beeraleyda iyo reer guraaga ama dadka deegaanka dadka reer guraaga dadka reer magaalka ama reer xeebeedka dhaqan hoosaadka Soomaalidana waxa ka jirtay laftirkeeda qofka dheer garadka ama Soomaalida wax qorto nooc kale isdiitiin oo asalnimo raadin yani anaga Soomaalida noocana asala noocaasna waa soo geleeti ama noocana asala ama noocana horumarsan oo ilbaxa noocaasna waa radbaadiye taa laftirkeeda inuu si fudud moogtahay hadda hal ka soo jeedna eegno oo deegaan sidoo u badan yahay reer guraaya iyo mesela sheekadiisa Manafay oo ku qorayo moogtahay Muqdisho ku qorayo Muqdisho sidoo uu matalayo iyo maxaan ku dhahdaa dadka waliba Soomaalida kale ee soo gashay maaha Soomaalida deganeed ee reer magaalkii hore ahaa u matalayo marka haddaan soo koobo waxaan isleeyahay aniga wuxuu leeyahay jawaab habboon ayuu Maxamed Daahir leeyahay oo ku socodana taabada xasuusisay aniga dhowr goor baan kuu sheegay mooyaane aad iyo maalin adu si sheeko nooga gashay Manafay nooga gashay Maxamed Daahir moogtahay marka aabay guuri ma abgalba markaas waan saarkay hello ma sheegtay shariiba kiyimid okay shaqti soo shingani digay soo ku koray shariibane Manafay qoray waa garanaysaa marka waxay u dhalisay waxa la banaadirinimadu inaanay ahayn reernimo ay laakiin ay tahay hab nololeed sida geeljiroonimadu ay u tahay hab nololeed moogtahay marka waa rudo kitaabkiisa novelkan sheekadan Manafay waxa isbaada malaha haddii ay Manafay leedahay isoo sheeg mataan ay leedahay mataanteedu waa baqiyatul aamaan kitaabkan uu leeyahay uu qoray Sharif Al-Dirus Manafay ku tahay waxa ka mid مثلا markii laga tago xagga style-ka iyo farshaxanimada iyo sida ay ugu gudubtay tii Abdi Casaabandi oo Facebook-ga la wadaagayo lahaa sheekadii silsil ku jirtay xeerarka aamusan oo xeerarkaas مثلا suugaan waxa noqonaya waxa hees noqonaya adu waxa qiim noqonayo dhani xeerar aamusan bay raacaan moogtahay xeerarkaas inta badan waxay ku samaystaan daily life-ka dhacdaana qaabaysa marka laga tago dhanka farshaxanimada arrimahan Manafay waxyaalaha dareemaysa waxa kamid ah markaad ku akhrido duruufta taariikheed iyo dhaqaale macnaheedu midab soo naqdi kastoo la akhrinayaay ugu horeynta waa in ka dhex baxaa naska oo Manafay ka dhex baxo magaalada Xamar tago iyo duruufii Xamar qaalinay iyada laftigeeda marka مثلا صالحان كان صوت هذا leeyahay شركة الدروسي والأفرح Manafay وبقية الأعمال والمعترون waxaa akhrido ugu dhalanaysa مثلا Manafay xaafadooda Xaaji Muumin Manafay Xaaji Muumin iyo dadka Xamar weyne degan iyo karakterka xaafadooda walaashad Iisha iyo aabahood iyo hooyadood ay caddi marka akhrido waxa dareemaysa xataa qaabku ma u sawiray magaalada Xamar waxa arkaysaa in Xamar joogto iskuis sheekada ka dhacaysa iskuis hidde ay soo dhaxashay oo xataa laylinaya wax walba jidka xataa jirka gabadha Manafay laylinaya xataa dhismaha qaabka magaalada u dhisan tahay iyo gabow ka muuqda moogtahay oo gabadhu maana ay garan laadahay sababta ay ugu qasban tahay in u hoggaansanto hiddaha isku dayaysa markaa inay hiddahan u jidbixiso wax kale ay noqoto moogtahay marka mesela lagu darayo walaal naadeerkeed diika moogtahay marka interestga waxa weeyaan 1930 markii Xamar waagii hore waxay ahayd Xamar iyo Xamar Daya moogtahay oo Xamar Daya iyo Xamar Daya ahayd marka magaalada Xamar Jiiraan isugu jirtay iyo Xamar Weyne diir bay lahayd marka dadka aan magaalada magaalada degan aanan ahayn dibadda ka yimaada si magaalooyinka kale ay ahaan jireen
statistics qodan wala laga reebi jiray hubka iyo waxay wataa way soo adeegin jireen waa laga saari jiray laakiin Talyaaniga markuu qabsaday oo effect shakil laftiga wax ka muuqda saameynta uu ku yeeshay isticmaalka ku yeeshay way ka muuqataa boogta waxa dadkiiga ku dhacaya gabowga iyo duugoobida ku dhacaya hadii hidaha tahay hadii magaalada tahay iyo hadday tahay qofka Soomaaliga jisadkiisa oo beedka shabeelle ay soo ugu fiican tahay marka ay xasuusinaysa waxay 1917 dhiig magaalada laga soo galay Talyaaniga dunjiyo magaalada xamar xarqa la yaqaan sameeyay waxa dhacaysa in mujtamaca meesha ku noolaa ee banaadiriga ahaa oo mujtamac reer magaalo reer xeebeeda ahaa ay u baahanayaan si ay u ilaaliyaan jiritaankoodii iyo dhaqaale xataa oran karna xabaaradeen inay u baahanayaan inay horumariyaan xannaan ay ku ilaalin karaan ahaanshahooda taas waxay keentay in ay dhaqanka ilaaliyaan oo iskuulsadaan iyaga dhexdooda dad kale iska ilaaliyaan oo sheekada ay noo sheegaysaa jiilkan yarna ay ku falaagoobaya maalin weyn baa lahaa maanaam waxa ugu weynayna baris taxweysay uu noqon lahay falaag marka ay ku tusinayso marka in dhaqanka si loo ilaaliyo iyo nolosha in barashada la ilaaliyo in halka aan la daafino laakiin maanaam ay tusayso sida jiilkii ku dhashay markii la qaatay gobonimada ama la qaadanay jiilkii yaraa xabartii cusbayd ku dhashay wixii ka dambeeyay 1930 ilaa 50 xilaatii iyagoo ay u deedafeeyeen ugu jid bixinayeen ahaanshahooda oo ka imanayeen faarnimada mesela markaad aragto sheekada dhex maraysa maana iyo reerkooda ama injineer Axmed iyo aabihi jaamac dhigay ya leeyahay reerkan maxaa ku geedayo kale marka in ay abuurayeen ahaansho Soomaaliyeed oo cusub oo ahayn kiyaka ya marka sababta aan isku leeyahay wasiir shabahan waxaan xasuustaa ninka la yiraahdo Scotris oo qorfaynta sameynaya buuga baqiyat al-amaan ee Sharif Haydarius leeyahay tales which persist on the tongue sheekooyinka carabka ku hara marka waxa sheegayaa kitaabkan wuxuu u yahay khulaasada ama gudaha u yahay hidde iska soo dhaxlay marka maana faayinka sheeka ahaan موضوع ahaan iyo duruufaha qaabeynayay marka ka dhex baxdo naska ee u gasho dhanka bayaha ay ka hadlaysay xamar duruufaha toddobaadkii in fact waxa cold war ka muuqdo مثلا talaseeg marka waa iska soo gaabinay talaseeg marka akhrido sheekada yar talaseeg ee uu qoray 2007 lagu daabacay hal abuur talaseeg waxa ka muuqda faamiliga Soomaaliga ee galaya dawlad marka laga tago cusurnimada ay dhaxlayso iyo waxyaalahan kale ay ka muuqato dawlad go'aaminaysa jiritaanka dadka ay xukunto biological oo hada wujudka jiritaanka jireed ee qof qaabeynaysa waxa cunayso ilmaha yar wuxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay aqalka oo islaanta ilmaha laga qaadanayo iyo marka haddana isku eegto maanfay iyo cold war sidoo ka muuqdo gaar ahaan islam markaas dhex maraya ama dooda dhex maraysa injineer Axmed iyo Sahriis مشروع imperialist iyo qabanayeen dawladda faqiirka dunida saddexaad iyo ka xoroobida muqoonintan caalamiga marka afax marka laga tago xataa dhaqan kale jid bixinta laga sida uu isugu talayo duruufaha kala duwan mooda xataa qaabka sheekada u bilaabay uu kaga duway mesela sheekooyinkiisa ka horreeyay mesela markaad eegto ama isay ka dambeeyay mesela wasiyo wasamo kale ama ruuxaan ama socdaalkii nolosha شركة جامع أحمد أما قدروا مع شعيب ما الفاي ما كبار يصح يكون بلعب على بعض جسد صومالي حتى جسد عشان يصح يكون شيء صعب مثلا كبرت يسوق كتير دقائق كل بسنت هو يدمي اللي بسنت جلس غلبوك راح توصل ستيج لاينين يوم شركة قاب كل بسنت وامد واحد كمان كل سنة حطنا internal monologue قف كان بو كان مدحي سكان السعودة يو شركة داخل كيس كان عايز على نص أصور إيه حتى عريس كهدين كبرت بحس مركا وحويان كبرت بقى هندية ده بقى يا حكبرتي مجتمعات كل جميستي مركا أي حرية قاطعنا النظام الحقل citizens of nations دي يا مواد الدولة الصغار مثل الصومالية من هندية وكلا إيران وكلا صور كلا تقول إحنا نقول مونستري اسمه عادي كاركتر الشركة كلها ولينا نشيل قارة مثلا أضيعن قاعد صدق هي منطقة بلاي جامع دقي بيت الشباب تيم كني
ay marka hore ahayn dad Talyaaniga guuleystay sida haddana ninka Soomaaliyeed u noqonayo monster ugu dambeynta wadankii iyo inantiiba ay eersanayso ninka Soomaaliyeed marka isagu optimistic uu yahay laakiin istii waxa ka muuqda dhikayga ku dhacaya jeesida qofka Soomaaliyeed colonial soo cadaaday haddana post colonial dibadda xiriirada qaatay looga sii daray gabadha kush dood ka dhacaysa oo yom qiyaamada la joogaa buu ibraahim dasal ku fasiray meesha ka markuu suuray وني والله الحساب هذه نقول بحث عن برجي سوتا waxaan moodayay in Cabdicasiis wax ku darabe حاجه صراحه موضوع qaayo qarqarnay u jiraan qarnaan inay basheen waxa jira marka aynu isla akhrino suugaantaas taw riyay taw xana qinka ah waxaan arkaynaa meelaha uu horseedka ka yahay afxadaha waxa kamida qodobka uu Abdullaahi waxaan dhaqan hoosaadka sida uu inoo baray waa runtii fasahan shakhsiyan jamaada aan flash jiray ka nabad soo dhigay xaga meelaha aan dareemay waxa kamid ah sanadka cadaymaha ugu helay qofku markasta dare cusub barto dare kasta oo aad barataa wuxuu ku soo kordhinayaa wax uu kala maqnaa dare kasta wuxuu kala maqan yahay meel ku fiil lahaa aragti uu ku xambaari lahaa qaab cusub oo aad eragaas iyo erey hore u taqaanay isku kabto aad ka dhex saar lahayd isku tuntaad ka dhex saar lahayd erey kale iska wada hadii sheekooyin ka maqan yihiin suugaan ka maqan tahay dafeed iyo mid qoraalba ka maqan tahay oo Soomaaliya ku saabsan afxalaha uu ina barayo waxa kamid ah maanta masraxaadka oo kale meel ayna filim wax ka soo bilaabaya Muhammad ay sheegan kooxda Soomaaliya kooxda lagu sheegi karo wax koox faneed ama koox ruwaad faneed oo banaadiri ah ali malaxan la ma aha maraxan marka waxa weeyaan as kamid ahaa iyo sida ay taasi uga duwaneyd waayada ama masraxa waxaan la yiraahdo theatrical ama uu ku macnaynayo hordhaca masraxa hordhaca masrax ka bilaabmayay dugsiyada haday tahay dhanka Ingiriiska sheekh magaalada sheekh ka bilaabmayay xamarna waxa ka bilaabmayay marka afartiyeeda ka bilaabmayay oo xilliga fanka uu bilaabmayo heeladu ama balwadi ay bilaabmayso afartiyeeda ka bilaabmayso geeda sinimo waxa ay bilaabi doonaan badhigtooda korinaysa marka meelaha uu barayo waxa kamid ah meel aynan fiilin wax ka soo bilaabaya inuu hadii la yiraahdo masraxa laga sheekeeyo masraxa Soomaaliya laga sheekeeyo waxa qof ku soo dambeysa inuu ka soo bilaabo isaseeg konton iyo kadibna konton afartiinaba qof gabadha Soomaaliyeed ruwaadi fiirsan ma jirto ayuu waxayna filayn inuu arkay konton afartiiba kooxda geynaysa jirta dumar baa kala qayb galaya oo ay la yaabayna maxay ahaayeen dumar xilligan oo meel ayna filayn iyo dumarkaas noqonay waxayna u fadhiyeen marka waxaan wax weeyaan afrax waxa uu nagu laabaya wax aynan marba meel ayna filayn waxa ay inooga soo saaro ahayn wax awaalay tahay oo marka dhankaas dhaqan hoosaadka dhaqanada kala duwan qofku hadduu intiisa isku koobo oo uu yiraahdo waqooyiga ka bilaabantay riwaayadu tusaalahaan oo kale dadna naga u sarreeyna hada waa rasmi ah waxa laga hadlaa inta waxa weeyaan waxaan la fahmi karin waxyaalaha dilaya wax soo saar qofka haba inuu wax sida qoro ama wax dhaawacay waxaas dawo u yahay sida wada shay jawaab u yahay dawo u yahay oo isku xiraya meel wax laga bilaabo dhanka kale wuxuu horseed u ahaa qodob muhiim ah oo yani ayaala inta si dumar u taabtay post colonialism ama hambada gumaysi hordhaca gumaysi haduu ahaa wax ka horeeyay xilligii yimi colonial ka ahayd hordhaca gumaysi ahayd taxdii intii gumaysi uu joogay iyo sidoo wuxuu jiraan hambadiisii ka tegay ay meesha taalo marka hambada haddii tusaale ahaan aynu dadka afafka wax qoraa France maano soo qaadano Edward Said soo qaadano Paulo Freire soo qaadano oo isugu jira madow iyo carab iyo laatiin khaas dalal kala duwan waxaan arkaynaa in dadka la heer noqonayo oo dadkii Soomaalidana waxa afxinoo joogo oo tusaale ahaan aragtida naqdinta
boos koloniyalka hambada gumaysi taabanaysa gumaysi kadib waxyaalaha meelaha uu ku taabanayo uu horseedka ugu yahay inkastoo aanay jirin dee qoraal dhamaystiran oo arrintaas gooni yahay laakiin siday u kala fiiqsan yihiin qoraaladiisa tusaale waxa uu ah the mirror of culture Somali distribution seen through oral expression codka kamid xaqada hore ku sheegnaa xasaasa uu farqiraal ka yahay Somali challenge and renewal marka kaas ka taabanaya wuxuu leeyahay dhaqanka Soomaalida ismaqalka kala wadaaga iyo dulqaadka baa si fagmayay wuxuu ka jawaabayaa su'aala dad baa inta ku dooda ajnabi iyo Soomaalida isugu jira oo aan u aqaano malaha waxa gala raac runta oo ah qofku inuu u haysto Soomaalidu in dhaqankeedu uu goorinayo cunfiga dhaqankeedu uu goorinayo si aan kala reeb ahayn dhaqanka Soomaalidu hal mid yahay horta marka koobaad dhaqanka Soomaalida waxa la yiraahdo gaar ah oo hal qodob ah dadka kaliya uu jiro kaas uu gooriyo cunfiga iyo kala tagga sayfaadeen qaranka Soomaaliyeed burburo qalabka yimaado burburo sidaas lagu kala idoobo diyaaraddu ay Soomaalida waxa soo kale laakiin wuxuu leeyahay afrax وكادي واحد شيء wax kale dhaqanka Soomaaliyeed ma dhigto oo dhaq ismaqal leh wadaag leh oo dulqaad leh oo kala dambeyn leh waxaas baa jira oo dhaqanka Soomaaliyeed hore u qani ku ah dhaqamada kala duwan ee Soomaaliyeed ha noqdaan xoolo dhaqatada ha noqdaan dadkan beeraleyda ha noqdaan kalluunka ha noqdaan dhulku taabanaya xataa naafiyada ala ibdaac dadka khaliika cadan kuugiisaas xataa ku taabanaya alabtirkeeda ومسرحات وكان لها أفضل واحد قرأ قدر في شو تيسير marka sababtaas qoraalka kale aan ku soo celiyay nation of words wuxuu noqonayaa in Soomaalida lagu sheego umada gabay oo faan ay moodo dadka gabay oo gabayga iyo dadax oo gabayga umada gabayga qof ay leeyahay Soomaali taas ay dadku ku faano inuu ka daba hadlo qofka cadaanka ah ama Johnson ha noqdo ama ha noqdo ilaa kuwa in kanool waxa beerta lagu horeeyo leeyahay wax Soomaalida ka faafira marka wuxuu leeyahay Soomaalidu ma aha dad gabayga u furuureeya dadku waxyaabaha kalena sida ay gabayga u qiimeeyaan ama si ka badan kuwii ay u qiimeeyaan sahan sheekara oo ah qayb kamid ah qaybaha suugaanta ugu qadiimsan oo fanka ugu qadiimsan fanka sheekaynta Soomaalidu u qadirta in la sheekaysto wax wixii wara la isku salaamo hataa ruuxan maxaa la sheegay isku salaamo marka oo aad la isku sheegay carruurta loo sheegay ma yaro aan reeyada fahmayna soo sheekayo waxyaalaha inuu aad ka fahmayno salahan imika toddobaadkii hore geerida Allah maxaa ka yar ka hor hadii ka akhriyay Ingiriis ka akhriyay nin ka qoray Christina Obax على فرح طبعا يعني nadiifa marka wuxuu sheegay gabdhaha Soomaaliyeed curriculum mashaqada dinta ay kaalinta ku haysan intaas waa taan caadi yani wax jira oo waxyaalaha uu afxamid gelin in dhaqanka Soomaaliyeed sida kale u fahmaan hadii qof kasta uu dib ugu noqdo inta ugu badan ee sheekooyinka hayo in uu ka helay waa dumar ayadii waa noocaas oo kale waa habriyadii hadba waa macluumaadkiisa qof way ka ugu badan ee sheekada hayay dadka Soomaaliyeed dumarka kaydinayay marka kaas hadii lagu tilmaamo maanta qof Ingiriis ku qoray Soomaaliya ahaadu doonay inta ku qoraya ama afkale ku qoraya uu yiraahdo dumarku kuma jirin dadka sheekada biyo rag uunba qoto ku xidhay maanta imika soo baxeen dumar sheekada ودنا إنه والله هم ربنا يعني ودمرنا بالشكل الدنيا واحد حقق حاجة كيف الشكل دمر واحد وصلوا هاي إنجابة وفقر كشيء الله بقول دقة كذا هو يالي أصل قدر حاجة هو عليه وهو يعني وقاب كدمر قطعة وأصل يعني قاب أصل كاي وقدر عشان أحنا نجي وقعده كذا وقعده كذا يعني بدري يبقى marka waxaan dareemaynaa taas ugu baraarujinaya waxaan aqliyada ay ambada gumay waxaysiinaya saalayaashiisa aad iyo meelaha marka ku celiyo meelaha u baahan ha noqoto meelaha aynu hadhow mustaqbal laga sheekaysan doono afrax markay darsayo si dhaba oo runa loo darsayo la soo hadal qaadi doono marka qodobka kale ee aan kaga baxaya xaweyaan waa Soomaaliga
markii hore sheegnay ku qaadanay waxa weeyaan Soomaaliga uu badbaadi ha noqdo ama bariish isku xidha ilaha iyo dhaqamada kale Soomaaliga ha noqdo mid ha noqdo erayo oo fara badan oo erebixino badan oo isagu tumay uu dhaqan geliyay hawl geliyay maanta wax badan ay u arkeen oo baahi sahan qofka Soomaaliga oo aan maanta helayo wax ka badan ugu safar maskaxeedka kaliya inta meesha oo aniga meelo badan iigu fiirin waayo mawduuca naqdinta iyo faaqidaada iyo hambada gumaysiga iyo waxyaalahaas oo dhan ayaa waxyaalaha aan inta wax ka turjumo marka kuwaasi erayo isticmaalay hawl ka fatay waana mid uu ku baaqayay ee uu lahaa maalintii geeridiisa ayaa haweenka qoraal iyo soo qoray wax xeeran taa ku cadaynayo Soomaaliga iyo awoodda uu leeyahay aqoon saacad buu keenay yani buugga maslaxaadku wuxuu banka soo dhigaya af Soomaali isagoo aan gabay lagu qorin shaqaaro lagu qorin shaqada xataa waxa haddana tan oo masara cilmi haysta isku sheegay dhibaatada haysta dhibaatada qof la kulmayo oo aan la kulmay marka Ingiriis ama uu ka qorayo mawduuca masraxa carabta ama masraxa sababtu soo qaadanay leeyahay qofku rabo inuu Shakespeare wax ka qoro qofku rabo inuu Maxamed Cumar Buriyo wax ka qoro labadaas halka uu rabo inuu Shakespeare maanta wax ka qoraa tabiya Ingiriis ah wuxuu helayaa kumanaan oo iyo qoraallo oo laga diyaariyay loo qoray wixii dhan buu helay dadna wuxuu kaliya u baahan yahay inuu ogaado halkeeda ku jirta naaqus ama inuu fakaaga ku jira gaabka halkeeda ku jira haka ay muhiim qoraya waxa kaliya uu haystaa waa magaciisa waray in loo jiray maxaa Cumar Buriyo ninkan uu kaliya u hayaa wax kale ma hayaa riwaayadiis ma qornaa heesiis ma qornaa bir la qaaday in baa jira lama garan karayo marka qofka intuu meel istaago afka adciyo iyo dhirka eegaya oo dhirka ka fiiranayo inay maxal ama samada soo socdo wana hawl adag oo qarbajaha marka hawshaas ku laga gufeynaya qodobaan isleeyahay waa yara muhiim in taabano waxaan kaga baxayaa aku qora afaf kala duwan qofka qodobada ku qoran arada ku qoran farasa ku qoran inaga dhaqanka kale taasi dhibaato ma laha dhibaato waxay ka bilaabantaa haddii qofku wayda waxa jira jumada karaya qofku haddii qofku soo taagan joogiisa ma anta mushkilada sida dadka qaar sida qoraayada qaar laga cawdo tusaalahan marka waxa isleeyahay afraxna taa uu ka badbaadayo waxaan dadka ku hayaa in ogolaa ayna khusayso weyn intii dhigisi Soomaali laga dhigo isadiisii beejiyay hawsha marka aan laakiin la bilaabina ilaahay oo soo marka taasaan kaga baxaya aad dabcan meelo badan baad ayaad ka taabatay waxaan isleeyahay lamana koobi karo lamana dhamaystiri karo maxaan ku raahdaa sooyaalka iyo wax soo saarka iyo qiimaha uu ku fadhiyay afraxintaba waxaan kaliya isweydiinayaa maxaan ku raahdaa afrax maxaa lagu xusi doonaa ama afrax maxaa lagu xasuusan doonaa ama taariikhda muxuu ku geli doonaa iyo inaan isku darno maxaa lagu dul dhisi karaa wax soo saarkii afrax aan qodobkaasi ku soo gabagabayno marka ayaan la ku horeysiyo horta afrax wax lagu xasuusan doonaa anu saan isleeyahay aragtidayda kow horta maarfayba lagu xasuusan doonaa xataa lafa gurkiisa suugaaneed dadka babla maaska dadka u badan yihiin waxay ku xasuusan doonaa horta waa sheekada oo u noqon doontaa waayo maarfay sababta loogu xasuusan doonaa kale waxa weeyaan dunidii maarfay ee sawiraysay iyo tii iyada dhashayba way tegeen maogtaa marka waa waqti tegey marka waxa lagu xasuusan doonaa waxa weeyaan waa taa isaga iyo casrigaaba toddobaatanaadkii sideetanaadkii lixdamaadkii xamar ama qadaayadka waqtigaa jiray ama dadku siday u nifisan jiray hadu waxaa lagu duldhisi karaa laba dhinacboo lagu duldhisi karaa mid waxa weeyaan xagga masalan fictionka oo kale ama malaawaanka oo kale sheekada ay tahay kow waxaa bilaabantay hadda in laga fikiro in sheekada Soomaaliga loo qori karo sidii aan loo qori jirin qaab kaloo aanan ahayn oo isku day u jiro Ustaad Jamcaali uu sameeyey oo in fact aan la wadaagno mujtamacaadka kale ee dunida reer bariga oo muddo dheer isweydiinayay
waxaynu uga baahannahay inaynu ku dayano qaabka sheekada ay u qoraan dinta galbeedku ama si kale haddii aynu u dhigno Cabdicasiis lahaa hambadii gumaystaha seebaa cunto kale loo karsan karaa inagu aan leenahay inagoo wax laga isticmaalayno marka waxa weeyaan waxay noqonaysaa meel laga dhaqaaqo taa arrinta xagga naqdiga waxaa lagu duldhisi karaa horta in horta ugu weyn horta hadda taala waxa weeyaan in la publish gareeyo ama dib loo ururiyo la daabaco qoraaladiisa aan xasuustaa 2014 baan ugu leeyahay suugaarsanay inaan arrintaa kala hadlay si qoraaladiisan kala firdhisan loogu sameyn lahaa masalan in la daabaco marka horta intaa la sameeyo marka agabkii la ururiyo meel haddii online publication laga dhigayo halkeega marka laakiin shaqadu ay noqoto qaab cusub looga fikiro sidii isaguba qaab cusub uga fikiray iyadoo afka Soomaaliga iyo farta la isticmaalayo suugaanta isagu xooga saari jiray waxay masraxa tiyaatarka oo runtii ahaa meesha ugu weyn Soomaalida qarnigii 20aad qumanaantooda qaabay oo ku saxsanaa weli tiyaatarka doonto markaad aragto masalan qormo uu qoray oo isla hal abuur lagu daabacay 2007 iyo la yiraahdo tiyaatarka uu leeyahay waxa weeyaan wadaaqad laga daawan karo dunida Soomaaliya ugu dooda tiyaatarku shaqada uu qabtay inuu yahay inuu dhammaan muujiyo isdiidooyinka mujtamaca oo masalan riwaayadu aad ka jeclaa waxa kamid ah riwaayadii kale haad Ali Sugulle ama saddex isku faantay Xasan Ali marka inagoo isticmaalayna tooliska iyo farsamooyinka iyo hanaanka afkeena ku isticmaalayna ishamin cusub loo tago marka laga tago shaqada ugu horeyso hadda ururiyo iyo taa oo Cabdicasiis shaqada wada hadday tahay dadka turjumid af Soomaali loo soo turjumo culumta kale naga maqalno marka in laga faa'iideysto ereyadii isagu falkiyay marka ay noqoto naqdi cusub oo qaab cusub loo samaynayo iyadoo laga dhaqaaqayo afrax shaqadiisa moogta isla saaraha meelaha laga qaban karo waxa kamid ah isagu halku ka eegayay misalan oo kale masraxa ka eegayay innaga misalan jiilkeena facan hadda soddonkiisa ugu dambeeyay kaani أنا واحد سامين واحد كويش داوشة فيلمات هندية أي ترجمان نبيك الفجل ولا نشرين مركا تاوح لقوك كثامين وحلقة واي واحد تابعين قفك الصومالي جاء في البلد داون شرين أما تقدر عوضك وحدا قابكو وأركي أما وصل ما يسمى كوماناتيس هذا تعيش وشعير كوار كاتسدويد واركس وضن كوار كوار ما صار موت يلا شاكرا hadday tahay sheekada dheeriya tagaaban iyo hadday tahay imika laftigeeda daraamaha ama filimka misalan imika waxyaalaha ay ugu baahi badan waxa kamid ah in dib loo diiwaan geliyo oo la faaqido filmadii Sooraan iyo Jawaan misalan saarahan kale oo iyaga laftigoodu noqonaya meel lagu duldhisi karo si naqdiga loogu samayn karo sidii afrax dadaalka bixinta loogu sameeyay masrax waxyaalaha cajiibka isbedelka uu afrax arkiitiisa ku qoray waxa kamid ah isbedelka heesta ku dhacay ma xaga dhismaha maasada ama luuqda ama miisiga ee production soo saaridda مثلا concept album ka qorfaynaya thesis-kiisa moogtahay مثلا dadku si gaar ah u qorfayna xakada Jabal Khaliiji iyo Nimcayaasi iyo Lafooda iyo masteexo albumka waayo concept-ka albumku ma jirin fanka Soomaalida ka hor burburkii dawladda waayo heeso wax ka dhex iman jireen masrax laakiin marka masrax meesha ka baxay waxa soo baxay concept-kan albumka oo meel kale inooga yimid qurbaha moogta duruufii ku dhex dhalanayno isaga laftigiisu arkay markaan waxaan isleeyahay qaab kala duwan oo iyadoo la eegayo qaabku isugu howlgeliyey fikirkiisa iyo qalinkiisa in iyo taa laga dhaqaaqayo la eegi karo meelaha kale ee mudan suugaan haddii la baaray hadday tahay dhanka daraama hadday tahay dhanka heesaha hadday tahay dhanka ay soo sheegeen xataa gabayga laftigiisa masalan Cabdicasiis waan ku waafaqsanahay masalan imikoo kale oo afraxna sheegayo masalan hidraawi marka sheekeynayo kale masalan carays ciise kaasho kale masalan
carays saar bay ahayd ama buraanburka dumarka oo kale ma ogtahay bisa carays oo kale selfie sheeka way ku dhex jirta ma ogtahay dhismaha maasada qaabka oo sheekaynta badan u dhacayso marka ta muhiimka noqonaysa waxa weeyaan inaan kow ugu horeysa xalkan dhaxlayna ay tahay kow inaan barano dhaxalku ma aha waa barasho ma ogtahay inay soo bixi doonaan afraxayaal ma ogtahay kadibna kasii dhaqaaqaya afrax meelo aan guurtig u dhaqaaqka marka taaba aniga aad iyo aad cabdicasiis waa si fiican waxaan sidaas marka koowaad afrax waxaa lagu xabsan doonaa marka koowaad waxaa xabsan doonaa hawshaas suugaaneedu qabtay yani dabcan sida shacabweynaha guud ahaan jamhuur maanafay baa aad u xabsan doonaan oo singubbaa waxaa laga yaabaa marka lasoo hadal qaado in ay markiiba arkaan xariyo iyo qabyo labada dacal taagan qaabkoodan hasagana marka lasoo xustaan maalin hasheen amaandeeq qofba uu jiro wax yani u ah astaan dabcan maanafay kama tagana dadka keliya maaha sidaas sheegnay maanafay laftarkeedu iyo sheekooyinka kale uu qorayaa waxa weeyaan dhaqan bay iyo dul istaageen faaqidayaan dareenka iyo nafsada hoose ee qofka waxaad moodaysaa inay tahay taariikh nololeedda nafsada qofka soomaaliga biography of Somali psyche nafsada qofka soomaaliga dhamaystiran noqoto amar iyo xamarkayga ama ha noqoto qurbaha oo ay dhan iska soo gelayaan Ibrahim Hawd oo sida uu qorto ku saameeyay ama ka dhabil qaatay afrax maanafay ahna qodob kale oo ay marka aynu qiimeynayno weeyaanka afrax iyada ku hayno kulaab u afrax meelaha uu mataraya ka mid tahay soo saaray dad qaar kaba baradheer qaarna la heera ama meelo kala dufeeyay oo noocsaarka suugaaneedba marka qodobkaas waa qodobka waa dabcan waa lagu hadday noqoto ka lagu dulisayo meelaha lagu dulisay marka inta hore haddaba lagu sii dulisay waxaa kamid ah meelaha uu yaro taabtay laakiin aad loo sii taabtay sahanka gabayga dhimashadiisa Ibrahim mar labaad soo qoray gorfaynta deel oo gorfayn dhabdhab ah serious oo la gorfeeyo silsilad deelay siyaasadeed oo buug dhamaystiran oo arrintaas qaadaya oo gorfaynaya marka waxaan u baahanahay marka koowaad horta sidaas oo kale Ibrahim yeelay oo kale meelaha aan la gorfayn isoo gorfay masraxa wixii ka dhimay stationkooda soo saaray intooda ilaa hadda waxaa afarta ku dhow sano wixii masraxa Soomaaliya xagu ku dhintay maxay masraxa xagu jiray markaas taado meelaha ay ku xigeeyeen Ibrahim iyo afrax xasanka afrax waa samafishi ama wanaag ayuu shakhsiyaha uu abuurayo iyadoo soo dhax ka dhibaato ka hadlaya shakhsiyaha abuur ama wax caadi ha qor oo saahan saxaadka ku joogo oo laga yaabaa dadka Ibrahim waxa weeyaan xagga quusta faraha ka sii baxayso xamar shaqadiga waa magaalo xamar oo si ay u dambeysay dalban qowlka koowaad uu kugu salaamayo dhammaan marka waa meelaha ay u baahan si baaddoon kada afrax iyaga oo ahaa wax sawiraysa xaaladda sawiraysa u fitay inuu soo wajibay yeelatay qudhiisa ma garanayno afraxiyan karakterkeeda waa in la baaro yadda afraxaysan waa sidee oran karnaa waa shakhsiyadii oo nooc afrax inaynu qoraayada Soomaaliga sheekooyinka xorriyad saas oo kale u fikirayso shakhsiyadaha hawd u fiirsano sheekada soo ah inaynu soo saarno shakhsiyadda aysan soo saarno shakhsiyadda afraxaysan soo saarno shakhsiyadda qof kalaysan marba qoraayada la jiro marka kale meelaha aan qaado waxa ka wada aan si buuxda u gacan banaanaa waxa kamid ah in la gorfeeyo fanka heesaha uu gorfeeyo fanka heesaha la gorfeeyo maasada oo maasada ilaa hadda diiwaangelin weyn ku wadna wax gorfeeyo waa kooban yihiin taasna waa maqaalo ama wax gorfeeyo maasada sheekada la gorfeeyo oo soo hoosteeda kaliya sheegaya iyo shakhsiyadaha iyo xabkada iyo waxyaalahaas oo dhan la taabtaa masaajilada iyo gaar noqday
markii hore bulshadayda daawo ismid ay ahayd badanka laakiin inta dambe waxyaalaha sida tusaan alba ku soo kordhay ayay nasashadu u soo qotay meel gaar ah marka youtube-leyda oo noqday meel kale masrax soo Soomaalida isku dawladeen inay ku soo soo saar ma noqdo mid doona hawsha kabnaado si doona ha noqdo waa inaynu korfayno oo iyadana loo qalo go-aan degdeg laga qaadan maxay intuu sheegay in khayr YouTube soo fadhiisanayaan khayr YouTube ka hadlaysa loo arko ifafaale iyo shaacsane umadeed oo faneed oo cusub oo u baahan isku taagulaado YouTube Soomaalidu sidoo tadawur noocyay markuu yahay masax ka hadlayo marka siyaasadda ka hadlayo ma aha waa meel kale dad kala danayn doonto laakiin in taas oo loo taabto haddii uu ilaahay jalli korfaynaha kale silsiladaha kale siina kan tahay inaan la diiwaangelin oo kaliya la qorto ilaa gubaa ilaa meelahaas waxaan isleeyahay cilmi qoraalkiisa barayo samada xaraf oo buu leeyahay marka qof literature qof Ingiriisi wax qoran ilaa hadal badan aan wada hadal waxaan u baahanahay ka badan Ingiriisi oo oranaya Suudaan kuwa orayo halkaas in laga fiican baqaa masal laga dhigan qoran isleeyahay umaan karo aad buu mahadsan yahay Cabdixasiis ayaan laba dabcan aan laftarkeygu haddaan ku darsoodhan lahaa meelihii in lagu xasuusan karo ama lagu xasuusan doono iyo wixii lagu duldhisi lahaaba waa soo koobteen markaa ku celin dambe uma baahna waxay noqonaysaa iskaga dib celin bay noqonaysaa laakiin waxaan isleeyahay mar haddaan waqti fiican aan soo fadhinay oo duubistan ay noo soo dheeraatay kulankii labaadna oo kii koobaad kaba dheeraaday qaybtii labaad qaybtii koobaad ka dheeraatay aad ku soo koobtid baan isleeyahay maxay tahay in Maxamed lagu xasuusto waxba waxa dhici doona lagu xasuusan doono laakiin maxaa habboon in lagu xasuusto iyo maxaa habboon in lagu duldhiso ay tahay in laga daba qaato oo activity lagu duldhiso aan waxaan isleeyahay waxa habboon Maxamed in lagu xasuusto naqdiga iyo adabka in labadaba yani hal gacan la iskugu hayo oo dabcan wado qofku inuu maxaan ku rahdaa qoraalka curinta iyo naqdinta mid inuu qaato oo dooq waana wax furan laakiin inay tahay wax habboon in maxaan ku rahdaa yani sugaantana cooyo sugaantana naqdiya inaad roolkaasi doorkaasi in lagu xasuusto oo maxaan ku rahdaa sida taariikhda u galo marka hal mar taariikhda wada gasho ama hal mar lala wada falgalo wixii uu qoray ee sheekooyin haday kalti macruuf tahay haday tahay nidaayada alxuriya haday tahay maxaan ku rahdaa manafaa iyo haday sheekooyin gaagaaban tahay oo maxaan ku rahdaa ka dabageeyey iyo wixii uu naqdi ama maxaan ku rahdaa falanqayn iyo gorfayn u qoray in moogta hal curintiisa iyo naqdigiisa la isku qaado waxaan isleeyahay oo kale iyaduna habboon marka laga yimaado dhinacyada kale ee aqoonta ee aad maxaad ku rahdaa tibaaxdeen in loo baahan yahay lagu duldhiso wax soo saarkiisii aan waxaan isleeyahay meel kalena waa lagu duldhisi karaa Maxamed Daahir Faarax haddii si gooniya ay uga daba qaadato ay uga daba gasho oo ah tajribada maxaan ku rahdaa tajribada joornaalkii halabuur jaribkaasi oo ah saxaafad sugaaneed moogtahay ama saxaafad aqoonta ka hadasha naqdiga iyo maraajacada iyo sheekooyinka faafintooda iyo buugaagta maxaan ku rahdaa soo koobidooda iyo wareysiyada la xiriira majaalkaasi aqoonta si guud gaar ahaan sugaanta iyo naqdinteeda saxaafadaasi sugaaneed in jaribkaasi isku daygaasi maxaan ku rahdaa hal abuur laga daba qaato oo lagu duldhisana aan waxaan isleeyahay waxay la tahay wax habboon waqti badan baan ayaan soo wadnay allah u naxariisto Maxamed Daahir Faarax cid kasta oo dhageysatay podcastkan labadiisa qayboodba waxaan ku dhiirigelinayaa aniga xaggayga waxaan ku dhiirigelinayaa inay qayb ka noqoto ururinta iyo isku geegeynta iyo isla raasashada waxay qof walba ka hayo sooyaalkii Maxamed Daahir Faarax waxa laga yaabaa in qofka in yar meel ku ogyahay sidoo kalena in isla wadaago oo la sii faafiyo haddiina akhyaarta qof wax ku daraya oo hal ama laba daqiiqo ku daraya ma jirin
waxaan jecelahay inaan intaa kusoo gebagabayno. markaas baan kaga baxay hadana inuu soo wada marno maxaa daahir ah aad iyo aad ayaanne waxba kuma darayo yaa waxa weeyaan dee inaan u ducayno waxa ugu weyn aqrax loo qaban karaa tahay laba falgal wax soo saarkiisa qoraan aad iyo aad waa dhan tahay ha loo soo duceeyo fatxada ha loo maro sidaasna aan kusoo gebagabayno fadhigan oo laba qaybood ahaa aad baad mahadsantihiin waa mar kale ayaynu kulmi doonaa haddii ilaah idhaho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaad dhegeysanaysaa Cambaabar podcast podcastiga aqoonta sheekooyinka waayaha iyo wacasha Soomaaliyeed. Podcastigan oo ah waraysiyo dhaadheer oo mowduucyo aqooneed oo xul ah ku saabsan iyo muxaadarooyin kaleba si aan jilood lahayn joogto ah ayaan ugu soo faafinaa baraha bulshada iyo shabakadaha laga dhageysto podcastiyada ha ugu horeeyaan Spotify, Apple Podcast, Google Podcast iyo weliba tobaneeyo kale oo barnaamijyada podcastiyada laga dhageysto oo uu ku jiro kan hadda aad ka dhageysanayso. sidaas oo kale waxaad kala socon kartaa barta YouTube-ka ku taxnow oo subscribe leh si faafi oo gaarsi cid aad la jeceshahay ku qiime halka aad kala socoto oo like-ta ama xidigaha si wixii faallo ah noogu soo gudbi barta faallooyinka ama fariimaha aad ayaad u mahadsantahay ismaqal dambe oo xiiso leh.